wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdilqaadir Maxamed Nuur iyo wafdi uu hogaaminayo booqasho ku jooga magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa maanta kulan la qaatay madax kala duwan oo ugu horeeyo wasiirka gaashaandhigga Generaal Yaasiin Ibraahim Yaasiin iyo taliyaha taliska guud ee ciidamada qalabka sida Sareeye Guud Maxamed Cuthmaan Al Xuseen waxaana kulamadaasi goobjoog ka ahaa safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq ugu horeyn wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa mas'uuliyiinta uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo dagaalada ay dawladdu kula jirto kooxda khawaarijta wuxuuna wasiirku sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xaqiijinta ka saaridda kooxdaasi ee ka dagaalanta Soomaaliya sidoo kale wasiir Cabdilqaadir ayaa dawladda Suudaan ka codsaday garab istaag dhan walba si cadowga looga guuleysto cadowgaasi oo khatar ku ah Geeska Afrika markii kulamadu soo idlaadeen waxa warbaahinta qaranka kulamada uga warbixiyay safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Isxaaq wasiirka waxa uu maanta kulan la yeeshay dhigiisa wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda dawladda aan walaalaha nahay ee Suudaan kulankaasi wuxuu khuseeyay xoojinta iyo xiriirka labada dal oo walaalaha iyo si alaale sidii oo tacaawun iyo iskaashi looga sameyn lahaa arrimaha khuseeya labada wasaaradood ee gaashaandhigga iyo howlaha khuseeya amniga sidoo kale wasiirka wuxuu la kulmay taliyaha sare ee ciidanka Jamhuuriyadda dawladda Suudaan iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale wasiirka ayaa booqday safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay ku leedahay dalka Suudaan waxaana uu soo indheeyay qaybaha ay ka kooban tahay safaaraddu